dhegeystayaal la soo dhawaada barnaamijka diblomaasiyadda ee Somali Positive 24 TV dabcan barnaamijka waxaan ku falanqeyn doonaa dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine oo maalintii shanaad kale dabcan maanta waxaa bilowday wadahadal labada dhinac u dhexeeya oo dabcan ka dhacaya xadka Ukraine iyo Belarus dabcan wadahadalkani inta badan diblomaasiyiinta caalamka iyo siyaasiyiin badan oo indhergarada waxay filayaan dabcan in wax fiican inay kasoo bixi doonin dabcan sida madaxweynaha dabcan Vladimir Zelensky ee Ukraine uu sheegay asagoo nafsadaantiisa inuu soo filayn inay wax fiican kasoo bixi doonaan ama wax lagu farxo laakiin wuxuu sheegay inuu u qaatay go'aankani si uu dabcan shacabkiisa u tusay inuu dhanka nabadda uusan weli ka cagajiidin isla markaasna weli ay furan tahay daaqad nabadeed ama diblomaasiyad dhanka xalka lagu gaari doono dhanka Ruushka ayagoo rag ay soo direen dabcan ma filay in siyaasiyiin sare oo dabcan senior politician ay soo diraan laakiin dhanka Ukraine ayagoo nafsadaantooda siyaasiyiin ay dari doonaan dabcan ilaa heer wasiir gaarayo dabcan hordhaca shirkan dabcan waxaa la sheegayaa wax wada hadal oo fiican inay iska soo bixin ama labada dhinac ba tanaasul sameeyay haddaan dul istaagna dabcan labada dhinac ba rabitaankooda ayaa waxaa muujinaya inaysan dhici karin wax tanaasula dabcan Ruushku wuxuu rabaa in Ukraine ay noqoto dowlad Russia Federation ama hoos tagdo dowladda Russia oo dabcan sida Belarus iyo dalalka lamida oo dabcan asaga arrintiisa ka socoto Ukraine dabcan waa tii go'aan ka qaadatay inay ku biiri doonto NATO haddana weli kadaal ay ka riixayaan reer galbeedku marka labadaas arrin oo isdiidan ayaa la dhihi karaa wax saas kama soo bixi doonaan Belarus iyo nafsadaanteeda waxa ka soo bixi doona lama oga ayada nafsadaanteeda ictiraaf caalami ma haysato ayada naftigeeda marmarka qaar lagu adkeeya oo reer galbeedku ay yiraahdaan waa dictatoriyad ee meeshaas ka jirto lama dhihi karo wax development oo wanaagsan ay Ukraine sameeyeen marka loo fiiriyo dagaaladii maalmihi soo hore dhacay laakiin Ruushka ayaa moodaa asaga nafsadaantiisa markaan inuu ku qasbanaado inuu miiska wada hadalka tago waliba waxaa jira heshiisyo iyo waliba kulamo aad wanaagsan oo gadaal ay ka riixayaan dowladaha bariga Yurub sida Turkiga dabcan iyo waliba Azerbaijan ayaa leeyahay dowladihii midowga Soviet isku hajireen dabcan dalal kale laakiin madaxweynaha Ukraine aad moodo wali inuu madax adeegayo walina xaalad uu ku badbaadi karo dalkiisa aanan jirin ayaa wali waxaad moodaa inuu warbaahinta la soo taagan yahay waa isdifaacayna geesiyaasha dalkeena difaacayo shacabkeena adkeysigeeda ayaan dabcan aad ugu faraxsanahay waxyaabo macnaha aad moodo dadkii qaxaya inuu wali dhiirigelin ka wada laakiin wax aanan saxaafadda caalamka isku farxin ay tahay sidoo kale dabcan Ruushku danihii uu ka lahaa Ukraine weli ma gaarin laakiin khasaare baan iyo halkaas ka geystay oo dal ayuu burburiyay garoomo ayuu burburiyay dabcan meelaha qaarna bara control oo caalami oo dalka uu lahaa hanti qaran ayuu qabsanaya dabcan lagana yaabaa inuu khasaare inta ka sii bato laakiin su'aasha taaganaya waxay tahay dagaalka kan inta uu sii socon karo iyo waxa laga dhaxli karo dabcan horta Ruushka waxa ka sabay cunaqabatayna caalami ah lagu soo rogay taas ayaa saameyn weyn ku ah oo dabcan la dhihi karaa bangiyadiisii caalamka dabcan waxyaraad lagu soo riday shakhsiyaadkiisii hantiyaasha iyo waliba dabcan ma hubnayn shakhsiyaadka dowladda sarsare wali cunaqabatayna lagu soo riday laakiin dabcan wararka qaar ay sheegeen Vladimir Putin iyo Lavrov labaduba ay cunaqabatayn ku soo riday galbeedka laakiin nimanka kan hadda waxay yihiin nimanka hogaamiyo United Nations ka madaxweynaha dalka ayaga secretary sidoo kale waa niman veto power waana niman super power military marka dabcan cunaqabatayntani si hadii loo fiiriyo way saameynaysaa sinima saameynayso laakiin waxaa qasaba in Ukraine danteeda mar walba la fiiriyo oo ah in ay nabad hesho maadaama Ruushku uu daris leeyahay Ukraine dal aad uga awood badanna uu yahay wuxuu ku qasban tahay Ukraine inay qaadato qodobo muhiim ah oo Ruushka dabcan u cuntami karo oo reer galbeedka marmarka qaar ay ka soo foqdo waayo hadda waxa dalka la weerarayo waa Ukraine sidaan dareemayno reer galbeedku hadda af ay ku soo aruureen oo ma u jeedno wax military ama dhaqaale ama kaabayaal dhinac kale oo ay u tirayaan NATO inkastoo ay sheegday inay difaacado xuduudadeeda oo kaliya marka la arki doono halka uu ku dambeeyo dagaalkani inta aan barnaamij kale oo noocan ku kulmi doonana dabcan waa isla ka warhaynaa aadan masantiisa